waxa uu ahaa howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga ay ka fuliyeen deegaano badan oo Shabeellaha Hoose ka tirsan kuwaas oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada argagixisada shabaab. Howlgalka ayaa isugu jiray cir iyo dhul, waxaana ciidanka ay ka saareen argagixisada deegaano ka kala tirsan Janaale iyo Qoryooley. Deegaanka Mushaani ayaa ka mid ah deegaanada ay cadowga argagixisada maamulayeen oo ciidanka xoogga ay cagta mariyeen. Markii ay ciidanka gaareen deegaankan, waxa ay dadka shacabka ah isugu soo baxeen goobo fagaaro ah iyaga oo soo dhaweynaya ciidanka xoogga dalka. Shacabka halkan waxa ay ku daaleen dhibaatada iyo go'doonka cadowga, dareenkooduna waxa uu xambaarsanaa jacaylka dawladnimada. waxaa goobta kula hadlay saraakiisha howlgalka hogaaminaysay iyo sidoo kale gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa amniga Janaale oo qayb ka ahaa howlgalka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo Cismaan Xasan Cabdi. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wax ma idin ka rabaan inay idin dhacaan sida taliyaha sheegay in zakal idin ka qaado oo maartay oo neefkiiba halkeen la idin dhaha ama loorkiiba falataan wax keen la idin dhahana ma rabno. waxaan u taaganaa in idin badbaadano oo ciyaalkiina oo hadda oo maartay la maran habaabinay ciyaalkan yar ka beenta loo sheegay dadka oo habeen maalin idin leh isqarxiye ama maartay saan sameey idin leh ilmahooda dibadda joogan dalkan idinka iska leh qof ajaaniba inuu xukumo mamnuuca ka tahay hay'adaha ka tahay anagu waxaan u taaganahay dalkeen inaan u dhimano ma laga yaabo shabaab inay eeridan ku noolaato oo maartay laba habol idin soo dirdiro iyo nafkeen iyo kan la ma yeelin anaga. Mushaani waxay ahaan jirtay meel ay waxbarashada ay aad ugu sareyso deegaanada Janaale hoos imaadaan imtixaanka lagu gali jiray Mushaani. waxaan huwa 8 tuulo iyo macallin Janaale iyo Mushaani inaan ku galno imtixaanka 8aad halkan aan 8 habeen ilaa 7 habeen aan halkan ku dhaxnaan jeefano ay ka nacadana la cunto ay macnaha aan dadkeeni la qaadano. laakiin waxaan rabnaa maanta wixii ka bilaawday inaan mugdi ka baxdeen. safarkan waa safarkii nabadda. taliyaha ciidamada gaarka u tababaran ee xoogga dalka Cabdullaahi Mustafa Cali Madaali Qaran oo hogaaminayay howlgalkan waxa uu reer Mushaani u sheegay in ay dawladda garabkooda tahay ayna u taagan tahay badbaadadooda iyaga iyo shacabka kale ee ku nool deegaanada kale ee gobolka ka tirsan. runtii Mushaani inaan waqtigan ku qaadano oo idin nimaano xaaladdeena ogaano idin aragno aad baan ugu faraxsanahay. xaqiiqdii waxana loo soo sheegay iyo wixii aan aragno way kala wanaagsan tahay. waa idin la joogaynaa maalmahan haddii Mushaani intii la yimaado laga tagi jiray waa joognaa. kuwa badan baa waxay isleeyihiin meelahaas ku dhudhuumanayaan markay baxaan ku soo laabtay isleeyihiin laakiin u sheega meel uma socno. waa joogaynaa waa idin la joogaynaa. howlgalka intuu socday waxaa deegaanada ciidanka xoogga ay ka saareen argagixisada kale yihiin Kaaytooy, Mushaani, Doonka, Majabta, Tawakal iyo Waagaale oo intuba ka tirsan Shabeellaha Hoose. ciidanka xoogga ayaa sidoo kale burburiyay koontaroolo ay maleeshiyada Al-Shabaab uga qaadi jireen dadka shacabka lacago baad ah. deegaanka Majabta oo ka mid ah deegaanada ay cagta soo mariyeen ciidanka waxa uu saldhig u ahaa maleeshiyada Al-Shabaab. jab badan ayayna kala kulmeen markii laga saariyay.